tobankii bishan July ayuu wasiirka dawladda Ingiriiska u qaabilsan Afrika Mark Simonis mar uu hortagay baarlamaanka Ingiriiska warbixin uu siiyay waxa uu ku sheegay in Ingiriisku muwaadiniintiisa uga digayo inay u safraan deegaanada Somaliland isagoo xusay in safarada muhiimka oo kaliya ay ku tagi karaan magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa madaxweyne Siilaanyo wax laga weydiiyay arintaasi waxa uu sheegay in Somaliland ay kamid tahay wadamada ugu xasiloon deegaanada ay Soomaalidu degto dawladda Somaliland cid walba dunida ku Ingiriiska ba way ka warqabtaa wal ogyahay Somaliland meel nabadgelyadu ka fiicantay bajirto marka arrinka Soomaaliyeed la eego barka xabar loo qiyaaso wax ka dhacaya waa la wada ogyahay waxa Soomaaliyeed ka dhacayna waa la wada ogyahay marka waxa weeye dawladdu cid walba kulli siyaabo fara badan waa loo dhaqmaa laakiin dadka Somaliland iyo dalka Somaliland nabadgelyadu waa mid caana waa mid loo ogyahay waa mid dunida dadku ay qiimeeyaan madaxweynaha Somaliland waxa uu sidaasi ku sheegay mar uu maanta ka dhoofay madaarka Cigaal ee magaalada Hargeysa isagoo ku sii jeeday wadamada Ingiriiska iyo Itoobiya waxa uu sheegay in Itoobiya ay ka wada hadli doonaan arrimo ku saabsan xiriirka u dhaxeeya Somaliland iyo Itoobiya markale waxaan sii marinaa dalka Itoobiya halkaas aanu madaxda Itoobiya kala hadli doono danaha inaga wada dhaxeeya taray saaxiibna jaarnahay dana badan inaga dhaxeeya aadan ay tahay in markaan meelaha marinaba kulliga aanu markii bedel joogaba la sarqo wixii danaha guud laga wada hadlo ka dhaxeeya labada dal halka ka bacdi ciidda waxa lagu sii gudbi doonaa dalka Ingiriiska halkaas iyagana bulshada halka ku nool Somaliland la kulmi doono visitkay wasaalka Ingiriiska waa mid gaar ah gesta kale madaxweynuhu waxa uu xarka ka jaray dhismo cusub oo yeelanaysa wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland iyo mashaariic kale oo laga hirgeliyay madaarka Hargeysa safarka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu xidhan yahay xuduudka u dhaxeeya Somaliland iyo Itoobiya kaasoo xukuumadda Somaliland ay hore u sheegtay in loo xidhay arrimo ku saabsan ammaanka Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa